maanta waa maalin taariikha waa milestone baan karnaa maanta waxa dhacay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa subxaanahu watacaala waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan waa markii u horreysay 25 sannadood aan dawlad wax kala saxeexnay dawlad oon galay bilateral agreement dawlad ku jirta UN-ta jaamacadda carab ku jirta ayaa subxaanahu watacaala ilaahay noo soo diray waan ku faraxsanahay cadowgeyga waxay ku noqotay quraanjay ku quurso ayay ku noqotay heshiiska bal faahfaahin naga sii imise sannadood buu soconayaa 25 sannadood laba dimension buu leeyahay mid waa mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda wuxuu kor u qaadayaa profile-keegii oo waxyaala nagu weyna wuxuu ahaa marka dawlad doonaysa ikraaf in aad leedahay awood tayo lagu aamini karo heshiis lagula geli karo waa shuruudaha statehoodka taasi waxay soo cadaynaysaa inaynu Somaliland ay tahay wadan heshiis la geli kara oo capacity leedahay waxa way xagga dhaqaalaha oo wadanka maanta saldhiga qaatay haddana shirkadda DP World ay tahay xarunteeda labadaas marka isku dirtay waxay noqonaysaa tacaala sidaan u sheegay 2002 yani berbera waxay noqon doontaa Hong Kong calaamadihii baa bilaabaya shaqa abuurmisa waxa ciidamada waxaan yeelanay military alliance oo hadday cidna soo weerarto way naga caabinayaan shaqaalaha ay noo furiyaan 5,000 oo dhalinyaro ah jirta reer Somaliland oo halkan ku qay oo aabayaasho 40 sano ka shaqeeyo amalla kuwaasaan u horeysiina inay shaqo ka helaan haddii ilaahay ilaaho xafiiska ka furan Somaliland waa geedigii dheeraa ee ahayd ictiraafka waa tallaabo hor laba weeye dadka meelaha ka qayb qaadanaya waxa weeye dad aan taagan halkii kontonkii la oran jiray iskuulada lagu diidiyay ee jaamacada lagu diiday iyo caqliga hewlana iibsaday ayaa weli xitaa maanta qornigii koobilaad la mariyo weli dadkeena qaar ku jiraan waan gartay waynu soo noqon doonaa dabcan dadka dhaliilsan heshiiska laakiin heshiiska laftiisa qodobadii nuxurka heshiiska ee la keenay labada gole ee baarlamaanka Somaliland ay ansixiyeen dad badan baa tuhun ka qaba waxay sheegeen inaanu ahayn qodobadii rasmiga ahaa ee heshiiska ku jiray isla markaana in duuduub lagu marsiiyay oo lacaga loo adeegsaday oo dawladda xoog ku waday ansixinta qodobada nuxurka heshiiska markaad aragtay qodobadii la ansixiyay iyo qodobada rasmiga ah heshiiska maanta la saxeexay isku mid ma yihiin Faysalow maxaa ku soo kordhay gudoomiye horta waxa weeye oo dawladdan nafsiga ka baxday bahayna ka baxday intaasoo waxa jira adduunka base oo la sameeyo xilligo mid kastaba dawladda markaan tala haysa ayaa saxeexa wax baarlamaan mariya ma jirto bulshada aragtay 4,000 oo ciidamada xilliga ugu weyn Turkiga laga furay wax hadal haya ogaa ma jirto maanta laakiin waxa weeye heshiiskan maadaama dawladdan ay dawlad bahdiga saaray ay tahay dacaydii nafta laga saaray waa taa keentay baarlamaanka waxaana waxyaalaha qodobada kala saxeena wax saldhig u ahaa saldhig base u ahaa wixii ay labada gol sharciyeeyeen ee baaskariyay waa saldhig ah oo laga duuli dadka caynkaale waa dad leh waa dad aan aragti gaaban leh oo waa dadka la aragtiga noqday cadowga ee mudaharaadka dhigaya arsaaqad korodhay adduun inagu soo kordhay dal inala saaxiibay aynu u baahneen 25 sano joognay wax ku mudaharada wax uma sharaxada moojaane ma ahayn habooneen waan gartay gudoomiye marka haddii heshiiskaasi cid uun labada dhinac ee maanta heshiiska kala saxeexday Somaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta qodobada lagu heshiiyay ee ka soo bixi weydo maxaa ka meel yaala sidee lagu xallin karaa wixii khilaafaad ee soo dhex gala 25 sano waa muddo aad u dheer waxa weeye horta adduunka inagu ma nihiin wax dadka ka jaala adduunku dawladuhu heshiis bay galaan hadday qolo heshiis ka soo bixi weydo loo baraajo dialogue baa jira maxaa dhacay heshiiskii way wada hadlayaa inagu waxaan ka fikirnaa had iyo goor xagga xun baan ka fikirnaa dawladuhu waa committed bay ku yihiin waxay ka tahay standardka iyo sharafta dawladnimo ka mid tahay dawladdan waa dawlad muslima waa wadanka uura intaa dacmo sharciga inoo furay markii Soomaaliya baabaaday meel kasta ha joogtay kii oo maanta dan inaga yeeshayna oo isna interest naga yeeshana kalsooni buuxa ku qabnaa dadkan waxaa ku hadlaya waa dad aan caqli lahayn oo dad xaasidnimo waa dad qof u muuqata waa qad reeraysan ninba waxbu dawladdu lagu kiciyay laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ha loo shukrino waan gartay marka horumarka uu saldhig military keenaya muxuu noqon karaa Faysal marka laga yimaado dad inay ka shaqeeyaan dabcan dadka saldhiga ka shaqeynayana waxay noqon karaan dad kooban muxuu soo kordhinayaa saldhigu midda kale muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya dekada qoladii lagu wareejiyay DP World iyo saldhigani ma shardi isku midaba oo haddii dekadii la siiyay khasab ay noqotay in airportka iyo saldhiga militarigana loogu daro ma horta DP-na waa shirkad caalami sharciyadu waa shirkad waa company kana waa dal adduunka oo inagu uma wax saldhig bixiya saldhiga waxaa loo bixiya lugadi istiraatiiji yahay xilif waa la yeeshaa kaayda ku jirta ciidamada la inoo tababaraya
hubkaynu ka qaadanaynaa haddii ilaah ilaaho shaqaa laga helayaa maawasaxo qura haddaad tahay waan u keenaya ciidamada halkaa jooga haddaad tahay waxaan u keenaya kaasiriga u keenaya yacni guryahan maanta berbera orod dhulka halku marya qiimihiisa desarkaa maanta aan joogna dobi ad aragtay sida marka adduunka iyo abudabi sabaditoogiya dowladnimada heleen desar behed maanta waa kaa adduunka o dhan isku yimid waa maskax iyo investment baa keentay maraykan baa degahooda og tahay oo taliyaal ku leh cid ka hadlaysaa ma jiro marka waxa weeye jahliga waa inaanuna hogaamin waa in aqoonta ina hogaamiso aqoon darada iyo ayna hogaaminin iyaanu afmiishaarku ina hogaaminin waa inuu mutacalimka ina hogaamiyaa wax garanaya aragtida leh waan gartay marka maxaa loo adeegsan doonaa imaaraadku dabcan waxay ka qayb tahay xulufadan sacuudigu hormoodka ka yahay ee waddanka yaman duulaanka amaba dusha ka duqeynaysa marka maxaa loo adeegsan doonaa saldhigan horta waxa weeye waa long term maaha short term dagaalkan yaman wuu iska dhamaanaya gabagabo noqonaya waa dagaal loo kala oo magaranaysa kuwa kii soomaaliya oo kale ka socday laakiin waxa meesha weeye istaraatiijiyad ilaahay nagu abuuray dadkani dad yani inoo soo goobtagay maaha waa dad ilaahay inoo soo diray insha allahu tacaala aynu ka macaashi doono waxaad bal iga warantaa dad badan baa ka soo horjeestay xisbiga wadani inta badan waxay ku celcelinayaan in saldhigaasi yahay mashaakil kusoo kordhay somalilan oo aanu ahayn haba yaraatee waxdani ugu jirto bal arrintaa ka waran adiguna xisbi mucaaradaa tahay horta wadani 22 xildhibaan uu sheegto xildhibaan kuma lehe kuwii ay iska sheegta ayaa horta footiyey waana si daro cabdiraxmaan isagoo baarlamaankii ku jira oo jeermaankii baarlamaanka oo baarlamaankiisa ansixiyey inuu isagu haddana ilaah lagu mudaarado waxaan u arkaa inay tahay aqoon daro siyaasadeed ayay la tahay oo amba uu adreskaneeyo dad yar dad ka soo horjeeda waa dad yar oo fara ku jiraysa anigu mucaarid baan ahay mucaaridka miciisu ma aha inuu wax dumiyo inuu hagaajiyo wey ama waxaan u imi oon siyaasada u galay inaan qaran noqono carruurteeda dal u dhisno wixii aan arkay kulba dawladii haysataa maamulka gacanta ku haysaa aan wanaag hayso waan ku dhiirigelina waan ku raacaya waana la garab taaganahay waana ku amaya inay keenaan guulaha wax alla waxay khatarda ugu haysa ma jirto jabuuti baa saldhigaal joogaan eritreyay joogaan soomaaliyay joogaan waxaa inaga unity naga dhigay guddoomiye waddanka abaar ba-an baa ka jirta xoolihii iyo dadkii haraad iyo gaajaa marisay meelo badan waaba laga barakacay dowladda imaaraadku ilaa hadda wax caawimo ah oo toosa ay dadkaasi ku caawisay ma jiraa dowladda imaaraadka hore 20 ceelbee ku ballan qaaday imakana brita ayaa loo tegayaa foundation khaliif foundation oo dawladdu ku amartay in arrintaas si degdeg uga qabto waxay ballan qaadeen imakana inay degdeg u keeneen wax gacan ay naga siin doonaan abaarta soo noqonaysa ee kuda soo noqonaysa si aynu uga hortagno dib inagu soo noqon ayuu tabtaasuu sheegay magaalada ninkay madaxda ka ahaa madaxtooyada uu yidhi bahasha waan iska caawinay dib usoo noqonaysa haddana waxaan jeclahay inuu si dhaqso ah markab u iman doono raashin badani insha allahu tacaala oo bilowgii noqon doono marka saaxiib heshid baad macaawina heli kartaa waan gartay arrimaha ganacsiga ma laga wada hadlay ta kale baasaboorka somalilan dadku kuma geli karaan waddanka imaaraadka carabta dad mas-uuliyiina hore looga soo celiyay arrintaa ma ka wada hadasheen mar haddii xidhiidhkan iyo walaalnimadan iyo saaxiibtinimadan adii sheegaysa ay dhab tahay horta waxaa lagu maamaaday rome maalin qura laguma dhisin arrimaha maalin qura laguma dhamayn karo maanta waxaan dhignay saldhigii furihii somaliland iyo imaaraadka ayaanu maanta aanu dhignay wixii kale oo dhan cooperation iyo wixii haddaa macaawinaa way daba socdaan laakiin salaamu calaykum maanta bilaabantay dalkan waxaa kiciyey oo ka shaqayn jiray dadkeeni kacaankii kasoo hortay mutacalimiinteyni dhalinyarteyni baa ka shaqayn jirtay soo farmziloya abaal weyn baynu ku leenahay waan la dhisnay abaarkii ilaahay inoo soo celiyey oo ayagoo maanta inagoo iska fadhina inoo yimid marka waa in ilahay ugu shukri naqaa waa hadiyad ilaahay inoo keenay